walaalayaal ilaahay baa mahadle in yaroo waxaa jira hargaba waad raali noqonaysiin. waxaan jeclaaday maanta inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan guurka. waxaan ka hadlayaa qoyska islaamka, qoyska bulshada muslimka ah. qoys muxuu uga dhigan yahay? waxa weeyaan arrintan arrin aan iska ka hadlayo un maaha. waxaan jecelahay inaan si aan uga hadlo ka duwan sidan horey wax looga maqli jiray, laakiin laba arrimood daraaddeed baan uga hadlayaa qoyska. waxaan akhriyey maalin dhoweyto taqriir amba warbixin ka soo baxday hay-adaha caalamiga ah ee sameeya tirakoobyada oo ay faafisay qanaad amba warbaahinta ART la dhahdo ay faafisay. waxa ay ka hadashay guurka iyo wadanada islaamka, furitaanka iyo wadanada islaamka. markaan akhriyey taqriirkaas amba aan akhriyey warbaahintaas la fidiyey, waxaa ii soo baxday inay qumbulad nucleara adduunka islaamka ay ka dhacday oo aamusan oon la arkayn. inta badan waxaan ka hadalnaa in ay wadanada reer Yurub qoysku uu dumay oo reer Yurub ay ku jiraan mustaqbalka halis, maxaa yeelay qoyskii baa ka dumay. laakiin diraaso lama hayo adduunka muslimka ah qoysku muu dumay mise uu dhisan yahay oo uu yaalaa oo fiican yahay. arrintaa lama hayo diraasaad. diraasooyinkii ugu horreeyey imika la sameeyey waxay sheegayaan waxyaalo argagaxa. matalan gabadh waxay qortay maqaal ay u bixisay oo aad u yaab badan oo aan akhrinayo mar dhoweyto. wuxuu u bixiyey sulaasiyatu rucbi waddamaar, saddexda shay ee duminaya dunida islaamka, oo ah saddex shay oo rucbi cabsi abuuraya, dumisna abuuraya. saddexdaa shay wuxuu ku tilmaamay furitaanka, guur la-aanta iyo taramulka, iyo dumarka marka la guursado la furayo ee keligood nool. saddexdaa arrimood waxaa loo bixiyey sulaasiyatu rucb fi lmujtamac. waxaan jeclahay inta aan ka hadal guriga, arrinta ii keentay waxa weeye inaan mowduucan qaato waa arrintaas. dunida muslimka wadanada tirakoob laga samayn karo, anuu Soomaaliya waan waayey wax tirakoob ka sameeya. dhalinyaradan mutacalimiinta waxaan u baahannahay inay arrimahan baaraan oo ay ka daba galaan, hadday tahay banaadir koonfurta, hadday tahay gobolada Jubbaland, hadday tahay dowladda Jubbaland, Puntland, goboladoo dhan, Somaliland, in diraasaad cilmiya laga soo qadimo xaaladda guurka iyo furitaanka. lianno bulshada aan u fikirna waa kuwaas weeyaan walaalayaal, raali noqda. marka laakiinse waxaan la xidhiidhay Jabuuti oon duco gaara aan kala xidhiidhay. furitaanku inta uu leegyahay iyo guurkuba way ii soo direen, marka iyadana waan ku darsan doonaa insha allah arrintaasi. marka waxaan u jeedaa akhrista aan akhriyey mowduucaas aan ini tusi doono statistigu, tirakoobku waxaa ka soo baxay cilmiyeysan ee ay soo sameeyeen dad maaragtay dabagura arrimahaas. sida ay soo saareen baan isla arki doonaa hadduu ilaahay dhahdo tabaaraka wa tacaala. arrinta labaad ee igu wacan inaan mowduucan ka hadla waxa weeye furitaanka oo noqday xaalad gayra caadiya wadanada ay ku nool yihiin dadkeenu ee qarbiga. yacni waxaan ogaaday meelaha qaar markaan dabaguray in uu guurka iyo furistu ay isleeyihiin, bal mararka qaarkood ay furistu ka badnaanayso guurka. arrintaa marka ay dhacdo oo cabsida intaa leeg ay imato, dunidan aanu ku nool lahay waxaa la afuufaa siidhi baa la afuufaa. waxaa la sara qaadaa kaartiga cas. waxaa la dhahdaa stop, han joogsanno, su-aal ha isweydiino. lima, maxay waxaani u dhacday? man, iyaa ka dambeeyey? mal, maxaa xala? maadaa bacd, maxaan kadib samayn karnaa? su-aalahaas baa la isweydiiyaa bulshooyinka culculus ee nool ee wax isweydiiya. saas wax isku weydiiyaan. Malaysia waxaa ka dhacday mar inay furitaanku ka badnayd guurka. su-aashaa baa la isweydiiyey, xal baa la isla gaadhay. isaga naftiisu wax badan ma qaban, laakiin wax uun buu taray.
waxuun buu taray arrintaas waxay ka dhacday wadano kale sida qatar su-aashaa baa la isweydiiyey xal baa lagu dhaqaaqay xalkaas wax weyn ma qaban laakiin waxuun buu wax ka taray markaas waxaa la rabaa in la isweydiiyo su-aal ah halkee bay arrintu ka imanaysaa halkee bay baridu ka qurunsan tahay halkee buu cadku ka qurunsan yahay iyaa qurmiyey halkuu jiraa xalka dabadii maxaa inoo ah inaan barnaamij wada samayn karno dadku hadday su-aalaha isweydiin waayaan waxay leeyihiin culummada bulshada baadhaayi dadka noocaas ah hadday su-aalaha isweydiin waayaan laba shay ka filo damaarun inay burburaan suma inhiyaarun kadibna inay tirtirmaan maxq uu ku dhaco amba maxwa baaba arrinta labaad fawda inay meesha fawdo ay ka dhacdo tirakoobyada qaar baa sheegaya wadanada qaar inay jiraan 1 malyan oo qof oo ku dhashay iyaga oon aaba lahayn marka bulshadu markay halkaa gaadho su-aasha la isweydiiyo wax weeyaan as'iladaas aad arkaysiin okay waxaan jecelahay inaan marka hore inii soo hormariyo mawduucan ka hadlayna waxaan odhanay waa asaaska guriga islaamka limaada maxaan u dooranay waan ka hadlay waa labada arrimood mawduucaas waa isla geli doonaa sidaan uga hadli doonaa waa isla arki doonaa insha allah laakiin waxaan jecelahay inaan mawduucan imika aad ila aragtaan bal ila akhriya tirakoobiyadan argagaxa ay ku jiraan furitaanku wadan yar oo la dhahdo kuwait oo ku yaala khaliijka oo ah wadan muxaafida marka muxaafid aan leenahay waxay ka dhan tahay waa wadan fusuqu ku yar yahay amba furfurnaashuhu ku yar yahay dadku waa muxaafidiin wada dhaqanka ilaaliya imisuu gaadhaad u malanaysaa furitaanku waa xaalad laga naxo wuxuu gaadhay 62.7 guurka yacni boqolkii qof ay isguursata waxaa isfura 62 qof 62 qof boqolkii qof ay isguursata waxaa sii wada 48 amba 47 dhibic wax yar yaa sii wada 47.3 yaa sii wada guurkii waxay guurka fashilmaa 62 boqolkiiba marka tiradu inta ay leegtahay iyaad ka arkaysaa libnaan waa wadan carbeed oo dhexdhexaada furfurnaashuhuna badan yahay maxaan ku dhahdaa muxaafidnimaduna ay badan tahay wuxuu gaadhsiisan yahay furitaanku sanadkii 2017 oo wadan yar 2 malyan iyo 3 malyan 8,580 qof baa isfuray يعني 8,000 oo qof baa isfuray Jazaa'ir Algeria waa wadan islaam isaguna dhexdhexaada xagga furfurnaashaha iyo muxaafadnimada tiro laga naxaweeyay sanadka 2017 waxaa isfuray 68,000 oo xaaladood ka 86,000 oo reer yaa dumay Masar waa wadanka carabta u ah ama muslimiinta u ah lafdhabarka waxay qorayaan 2015 malyan qof baa isfuray 1 milyan oo qof oo bini aadana ayaa isfuray macnaha waxay weliba qoraysaa jariidad kale waxay leedahay Masar 4 daqiiqaba 4 minidhbaba furitaan baa dhaca 4 minidhba Masar furitaan baa dhaca waxay leeyihiin wakaaladaha qaarkood 2 minidhbaba bal waxaan ka yaabay wakaalad tiri daqiiqadiiba furitaan baa dhaca dalka Sacuudiga magaalada Jidda Sacuudiga wad garanaysiin wadan islaam ah oo lafdhabarkii ah magaalada Jidda boqolkiiba 50 2015 dadkii isguursaday way isfureen yani Jidda Sacuudiga Jidda way soo qaadanay boqolkiiba 50 dadkii isguursaday guriyihii waa lagu kala tagay Sacuudiga waxay leeyihiin waxaa isfura 33.9 boqolkiiba guurka marka loo eego yani matalan waxay ku leeyihiin 2017 waxaa isguursaday Sacuudiga 133 oo qof 133 oo qoys baa isguursaday qof ma yani xaaladooda guura dhacay waxaa markaa kala tagay isla sanadka 40,000 oo qoys يعني 40,000 baa duntay
oo qoys waa damaar. Tunis 2014 waxaa dhacday 14,000 oo ka amba xaaladood oo talaaqa ayaa ka dhacday wadanka maxaa dhacdaa Tunis la dhahdo. Okay, culimadu waxay leeyihiin inta Djibouti waxay ii sheegeen dadkii aan u diray caasimadda maxkamadaha caasimadda ah waxa weeyaan istaatistiga ii soo sameeyeen waxay dhahdeen waxa weeyaan waxay furitaanku uu gaadhaa 32%. 32 boqolkii qof isguursataba 32 way dumaan. markaas waa murtafic weeyaan, aad bay u sarreysaa. asbaabaha Soomaaliya ficlan dhalinyaradan degeysata iyo dhalinyarada aqoonta leh ee jaamacadaha dhigata waxaan rabaa diraasaadka ijtimaaciga ah in loo kaco. maxaa yeelay Soomaalidu waxay u baahan yihiin maanta in la baaro bulsho ahaanna waxa ugu culus ee inaga dumay waxa weeyaan dowladda waxa ku xiga waa qoyska. marka qoysku waa dowlad yar saan sheegi doono, waxaana lagu dhisaa waxa dowlad lagu dhiso. haddii qoyska lagu fashilmo dowladdan waa lagu fashilmayaa, haddii qoyska lagu najaxana dowladda waa lagu najaxayaa. waa micyaar, waa norm laga qaadan karo, maaragtay example laga qaadan karo ama namuudaj model laga qaadan karo. waxay baadhaan culummadu marka aad eegtid furitaanka intaan la eg ee dunida ka dhacay islaamka. waxaan inii soo qaateen waa in yar, waa cayina, waa qayb ka mid ah dowladaha islaamka. waxaan ay leeyihiin asbaabtu maxay tahay. intaan asbaabta gelin waxay baadheen furitaanku goormu dhacaa. waxa weeyaan xaggan waa inaad aad ila dhegeysataan. furitaanku wuxuu dhacaa sanadka 1 ilaa sanadka 5 boqolkiiba 65. dadka isfura boqolkiiba 65 waxay kala tagaan sanadka 1 ilaa sanadka 5. macnaha waa marka la isku cusub yahay, waa waqtiga la rabo in wax la barto, wax la ogaado, wax la kala ogaado, wax la isla garto, wax la kala garto, waxna la wada garto, waxna la kala garto. waqtiga loo baahan yahay waxa weeyaan waa 5 sano ugu horeysa. waa marka uu ilmuhu ku jiro iskoolka xadaanada ee ka horeeya dugsiga hoose. guurkuna saas buu leeyahay. waxaan u bixiyey marxalatul xadaana fi zawaaj. marka marxaladaas waa muhiim. marxaladda qofka gaarderiga ee xadaanada uu ku jiro waa marxaladda ay dhacdo shoogga u dhaco sadmadu, waana marxaladda badi lagu kala tago. marxaladda labaad ee la isfuro waxa weeyaan waa marxaladda la gaboobo. yani boqolkiiba 25 waxay kala tagaan marka la gaadho 20 sano ilaa 30 sano inta u dhaxayso. yani marxalad la soo wada noolaadayna waa marxaladda labaad ee la kala tago weeyaan. marka marxaladdii maa bacda aljaamica qofku universitygii ka baxayo uu bislaaday uu khabiir noqday iyaa la kala taga haddana ay badan tahay. marxaladda 1 iyo marxaladda 2 marka 20 sano ilaa 30 sano inta u dhaxaysana furitaanku wuxuu noqdaa furitaanka ugu badan. waxay leeyihiin culummadu bulshada baadhay haddii 5 sano ugu horeysa la dhaafo inta badan waa la badbaaday. laakiin waxaa haddana la qaataa digniin marka 20 sano la isqabo ay bilaamaysa marxalatul malal waxa loo bixiyey, marxaladda daalka la kala daalayo, marxaladda loo bixiyey annudjul qayra naadij, bisayl aanan bislayn. qofku wuxuu moodaya inuu bislaaday laakiin ma bislaan. marxaladaasna waxaa bilaabma in la kala daalo. inta kaleeto hadhay tiradana intaas bay u dhaxaysaa. marka haddaan ogaanay markii 3 goor la kala tago waxaa ugu badan marxaladda bilowga 1 ilaa 5 boqolkiiba 60, boqolkiiba 20na waa 20 sano ilaa 30 sano. intay noo soo hadhay tiraduna waa goorma, waa inta u dhaxaysa weeyaan. okay, waxay culimadu baadheen inta badan halkee bay ka imataa inuu reer ku dumo. su'aal khatara ma yani ma hiya asbaabu talaaq. furitaankan kaarisada ah ee wadanadan aan ku noolahay matala anaku ee North America 10kii qof isguursata 6 baa kala tagaysa. weliba waxaa loo kala tagayaa si xun. waxyaalaha diraasaadka aan sameeyey
waxaan ka helay waxaa ka mid a inuu nini naagta uu ka tagayo markuu gabadhii ka tago uu furay amba ay kala tageen ciyaalkiina uu ka tagayaa yacni waxay kala tageen waa gabadh ay caqdi wada galeen caqdigu waa maxay heshiis baan sheegi doonaa laakiin wuxuu raacinayaa ubadkana ma heshiis bula galay ahayd ma garanaysid iyakiina iska tagay waxay ubadkii markaa ku dhacayaan waxa loo yaqaano alla abawiya abala-aan waxaa imanaya qayb dhan oo la dhahdo qaybtii amarka qaadanaysay vid baa ku dhacaya ilmuhu wuxuu leeyahay qayb amarka qaadata iyo qayb jacaylka qaadata hooyadu waxay korisaa qaybta jacaylka qaadata aabuhuna wuxuu koriyaa qaybta amarka qaadata iyo qaybta talada hadduu waayo meeluu amar ka qaato oo ka sarraysa oo daacadu ka qaato ilmihii waa dumaya wuxuu waayayaa faraaq baa ku dhacaya faraaqa waxaa ka dhalanaya waxa aad aragteen ee ummadeennan soomaalida haysata marka north america tiradu intaa way kasii badanaysaa waxaan halkan ku haynaa dhalinyarada la xidho ee xabsiyada ku jira waxa ugu badani waa dadka soomaalida ah waxaana ugu badan faamiliyada kala tagay iyadana arrin kalaa jirta dhalinyarada waxaa kale oo ku jira dhalinyarada isdireerta ee islaysaa kadibna 400 iyo niinii sii socota oo Soomaaliya oon xamar ku dhimanayn oon boosaaso ku dhimanayn oo Kismaayo aan ku dhimanayn oon Hargeysa ku dhimanayn oo Jabuuti ku dhimanayn oo ku dhimanaya halkee ku dhimanaya North America waxa ugu wacan waa faraaqa waa yutmun waa agoonnimo aan agoonnimo xaqiiqi aan ahayn waa ilmo waayay waalid markaas bulshadu waxay ka dhisantaa waxa weeyaan waa guriga weeyaan ولذلك waxaa muhiima inaan isweydiino markuu qofku ka tagayo gabadha amba uu furayo amba ay gabadhu ka tagaysa ninkeega ay furayso ila dhulka way furan agoon ragge marka ay gabadhu ninka la furto ay ninkii ka tagto maxaa dhacaya markaasi waxaa dhacaya arrin aad u qariiba waxa weeyaan ilmihii baa noqonaya ilma aan laga tashan maxaan ka yeelaa sida aan arki doono quraanku wuxuu inoogu yeedhay manhaj la yidhaahdo manhajul mufaaraqa sidee loo kala tagaa diinta waxaan ka qaadanaa inta aan doonayno inta aan doonina kama qaadano diinta waxaan ka qaadanaa inta maaragta dusha aan ku xoorinayno alla hebel waxa uu sameeyay heblahay waxa bay samaysay heesahay dhigaysataa waxa ma ka qaadanaa laakiin kama qaadana diinta cumqiga diinta ma dhaadhacno diintu waa xal waa solution sidee buu nin iyo naag isfuray u kala tagayaan gabadh iyo wiil kala tagay say u kala tagayaan manhaj baa u yaala inaad manhajka lagu socdo xataa manhajka culimada qaarkood ma yaqaanaan been ma culimadoo dhan ma oran culimada qaarkood منهج المفارقة سيدي لوكا لصعدا بالحسنى أو يكون لسكو في عيه ما يقانا ولذلك أيها الإخوة وحالنا هاي أسباب تكينتا إن لا إسفرو محيطهاي وإلا يتمسى وضويا يا طبعا صوت موضوع مرنا لأن موضوع إنما صوبتكو بادي وحوية عدم التفاهم ما بين الجنسين labadan isguursatay isma fahmaan isma yaqaanaan isma bartaan isma ogaadaan isma dhuuxaan gunta ma gaadhaan markay isfahmayaan raggu noocyay leeyihiin dumarkuna noocyay leeyihiin waa inaad fahantid nooca aad guursatay waa noocee noocaad guursatay waa noocee ma libaaxad baa ma bakaylaa ma bisad baa حيوان خلوص بذا نكون واصلاص عدم التفاهم ما بين شريكين لبدا نرشة وذاقية اسمه فهن سنو ومشكلات علوس او اباها ان وقت لقليو ان لبرتو وحاجر بوغان لغا قري التفاهم بين الجنسين لبدا قف سيسكو فهمي كران فن التفاهم ارك اللي اسكو فهمو كيفية التفاهم وحاجر وحالي دهدا محانكو دهدا سمينيرو لقاطو او لبرتو اسكول لا aadaa jira adigu waxaad rabtaa inaad shaqo heshid iskuul badadaysa guri ina asaasidna ma baranaysid waa problem marka in la barto waa muhiim jiddan 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 arintaas sababtaas waa sababta labaad ee keenta waxa weeyaan waa sabab ra'iisiya al-jahlu bid-diin dadku oonan diinta aad u aqoon islaamka maqaasidiisa ma yaqaanaan ujeedooyinkiisa islaamka dadku ma fahansano mana rabaan inay ku dhaqmaan marka taasina waxay keentaa ina horay la isku furo amba la kala tago arinta saddexaad ee keenta waxa weeyaan الجهل بالواقع والمتغيرات inuu qofku garanin waaqica uu ku nool yahay
iyo isbedelada ka socda shalay gabadhuhu say ahaayeen maanta maaha gabadhii jaahiladii hadday wax barato dhaqan gooni u baahan tahay gabadhii wiilkii shalay toole yurub afrika ku nool hadduu yimid yurub ama maraykan inuu isbedela loo baahan yahay laabudda min ataqalum inaad wadciga raacdid baa loo baahan yahay adoona ka tanaasulayn qiyamkaagii iyo diintaadii idan waxaa loo baahan yahay akhani arrintaas waa jaahilnimo jaahilnimada realityga iyo waaqica iyo isbedelada lagu leeyahayna waxay keentaa inuu isfur ku bato arrinta afaraad waxa weeyaan waxaa keena waxaa loo yaqaano الاستعجال في اتخاذ القرار قرار كفريتانك او سي دغدغ لو قاطو قار با تليفون يسو دير waxay ku dhahaan sheekh wadaad islaantii baan furay imsaad furtay saddexdiiba hal ma leeyahay saddex seedu gaadhay adigu wuxuu ku leeyahay iga xadhiisisi oo markaa cadhadu ma furtaa oo markaa de raganimadii ah ilaahay nabigu nibuu yiri sallallahu alayhi wasallam nibuu ka yiri inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah wa rasuluhu waxaad leedahay laba sifo oo ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin ajiib sooma ninka waa gaal buha laba shay baad leedahay ashaj laba shay baad leedahay oo ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin maxay yihiin buuli alxilmu dulqaadasho wal anatu daganan nolosha waxa lagu wado waa labada raganimo raganimo halkee u dhimatay hadii lagu dhahdo maaha fed iyo leed iyo cadho iyo trigal jibiyo iyo glaserko la leedo iyo sanita iyo maaha laysa al-amru kadhalik wa maxay geesinimo al-hilm dulqaad wal ana iyo qiyar socodnimo arinta biraan eegayna al-anat waxa baantay an-nadharu ila awaqib al-umur maxaa dhici kara berito wala ka fikir markaasi arinta baad leedahay marka qofku wuxuu ku leeyahay saddexdii waa dhamay maxaa ku haray aqalka dhaaf saadka khalaas tukala guurso iyadoo waa in kala guursato oo ninka kale aydan adu aad ku oranayso soo guurso muxallil loo baahan oo ninkaas isagu ilaahay dadku u furo oo marka uu furo kadib ay kala tagaan baa halka ku bilaamaya qabla dhalik falaysa laka ilayha nasib wa nasiba kugu haray halkeega ma jiro wad dhamaysateen ilaahay toonigu tala galay talaaq maratan saddex jeer waa wactiin marka takubaad subhana allah ta'afarat استعجال دقدق العجلة من الشيطان دقدقنا هو كيماذا شيطان أرنت شناد وحوي استقلالية المرأة ماديا هذا كانوا فريتانك وحا كمدها قبل أو هالشيء حرية نعم ماتريالك العقب هاش قبل شوية شقيسة أول تولد ضمرك ده مصروف كان لقيرا لقيرا عبسيني إيه صار مصروف هداد وابيسين ويكون وابني هداد له لشدنا ويكون هذا عاصم ما نسى marka gabadhu waxay ku leedahay waa reforma war maxaa isku daalinaa fakra socono material ahaan bay ay noqotay qof mustaqil ah xorriyad libaqaal baash xagga economiga idan dhaqaal ahaan arintaasna way ka qayb gashay furitaanka diraasaadka la sameeyay awal toole waxa yareeyay waxayd gabadhu lacag bay heshay inay furitaan keento maaha khadiija nabiga way ka lacag badnayd sallallahu alayhi wasallam way ku xoolo badnayd nabigu miskiin buu ahaa faqiir buu ahaa alam yajidka yatiman fa awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى نبي واحد إلهي يقول أضوم مسكينة أي إلهي كارك غني بسبب خديجة غني كن نقضي رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام مركا قبضوا ويا نكرتها لكن خديجة النبي مفرد مو لقورسدي لما قورسد ليه العيال بقى يدو كراي يدو يوم حكستم إلهي كسي وكفاني جري خديجة نو يكفاني سئلها شيء أعظم الرجال ragga ninkii ugu culusaa isaguna inuu helay sayidatul nisaa naagta dumarka adduunka ugu culusay marka taasi waa taabay arinta saddexaad ee keenta waxa weeyaan التوجهات السياسية وارما علمي ولا باري هذا البوليتيك ما مصر وكلا كدعدا هذا إسخلاف سنيهين ونكون وياه مثلا حزب مارة معارض كناكتنا محافظ كتاي كلا تغيان كويت بكدعدي عراق بكدعدي سومالينا التوجهات المذهبية كدعدا صوفية سلفي وحكا عدا مارتي إخوان إصلاحية سلفية ويكلا تغان تبليغ قاربا هنا وضيا كتبا توجهات كنا ويكانان إلا كلا تغو وحيلا لا باري ويان أريد مارتي لحاد الفقر فقر يقولنا وكانا باهي دا بدن هذا دا باهي بدن محيبا ولا سكون نعا مركو قفكي باهي مركا يساقونا
وكان لأن باهد وح كسيد المثال يا تضبا وحويان وحكينا أسباب جنسية هكا جوجشة حاجة سكسية هكا سكسية جوش ويكيتها جوش سوى كيتها اللي سنفهمين إيه إنه بتكون ضعيف هي إيه إنه بتكون بكو إيه إنه بتكون حالة قارة ليه أنتوا والد دوية وعباها على أرض بقول كيبا أفرتن فريتان كوضع كتونيزي كدعي وحال لقوا عليه أسباب صارتك كيمتي وعلمي والله باري وحيالا كلا إلا باري وحاكمي سيديد حقا إنترنت تواصل اجتماعي حقا سوشيال دad كان إنترنت كجرا أنا بحي أنا جو dad ودا نول أو كلا نول dad guri wada jooga oo isla joogin dad wada wax isku ah oo wax isku ahayn dad aan isla fadhiyo oo wada xiriir aan lahayn tawaasul ijtimaaci ninkii caalamkiisu iska jira gabadhina caalamkiisa sidoo caalamku jiro buu leeyahay biyay kale bis ya caalamkiisu iska jira biyay kale buu kale iyana say caalamkiisa ay soo jiro meel ilmi yar iskoolka xasaaga ma tagin maxaa tagi ma tagin waa u tagi doonaa hawo ugu marxushay baa kan ugu sheegay marka التواصل الاجتماعي قلنا فريتان كأو بدي لبنان بقول كيف تطلبوا كرسي وده لبنان وعلى سكفر وإنترنت نت بالوجرة عجيبة إني صوتها أريتها مسلسلات أفلام التركية إيه اللي ترجمي فيلمات التركية إيه اللي ترجمي وحي كقيب قالين هي أمريكان كان جنوب كفرت أمريكا مكسيكيو يقول سوي فيلمات تاس يكون واحد كانن af carabiga af Soomaaliga turjumay anu waxaan ku dar lahaa iyo filmaanta hindiga af Soomaaliga waxay keeneen iyaguna waxay ka qayb galeen furitaankii bay ka qayb galeen way badiyeen furitaankii baro fursada ugu dambeyntii waxa weeyaan waxyaalaha keena furitaanka waxaa kamid ah geedka jaadka waa dhakeena geedka jaadka iyo mukhadaraadku waxay ka qayb galeen iyo khamrigu waxay ka qayb galeen dumista reerka reerkii iyakuna ay dumiyeen oo jaadka wixii ciyaalka loo geyn lahaa baa jaad lagu cunaya xoogii jirku yeelan lahaa baa jaad ku qaadanaya taasina way keentay waxaa kale oo keena reeraha dumiya reer kale dhismihiisa reer lagu dumiya guurka badan ee raggu ay sameeyaan wuxuu keenaa dumis badan oo reerahooda la dumiyo yacni waxa weeyaan reer buu dhisayaa laakiin reeruu duminayaa iyadana waa ka mid asbaabaha keena maxaan ku dhahdaa furitaanka okay halka waxaan ka soo baxnay walaalayaal mawduuca ku saabsan furitaanka oo aha waxa igu wacan mawduucan maanta aan ka hadlayno inaan ka hadalno walaalayaal horta guurku muxuu yahay waxaan isweydiinaa su'aala guurku muxuu yahay guurku qur'aanku wuxuu ku tilmaamay al-miithaaq al-ghaliid وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ميثاق هو محي ميثاق وهشيس هشيس كإله محوك تلام من أذك غليظ إمام طبري رحمه الله وحولي غليظك وحلو جدا إن قبضا يننكو أي وضن والعضان سيدعو في عن إمساكم بمعروف هذي السعون ويدنا سوى ناكس الله كرته تصريح بإحسان ولذلك إمام مجاهد رحمه الله وحولي كلمة دني نكاح وان كورسدي أي قبضنا أرانا سوان أقبلي وأبهلنا أرانا يوان كسيي أي وحاس أرانا كود عيان ميثاق قاسي شيس كاسي وحولي وحالقو حالها شدي عوردين عوردنا أصل كم حي هيد وحن حلالهين والذين هم لفروجهم حافظون ولا يزنون زينو لو ما دوا هذا زينو حرام بهيد ما دام أي حرام هيد حرام أي هيد وحلو حلالي حرانتي كلمة داس هو محي وعقد وهشيس كاسي يودح مري صدح ظرف بودح مري أصلا هشيس كو ودح مرا لبا طرف هشيس مركا دعيان ولا لبا طرف هدي بيع مشتري ليه ولا لبا طرف ميد واحد قدنايا يميد واحد قضايا هدي يقول لك ريسانيا ولا لبا طرف ميد كرينايا ميد كريسانيا هدي واحد لك الرهانسانيا ولا لبا طرف أي عقد أدونك الله قلاي لبا طرف بوليه حتى دولته مركي قاليان وأطراف لكن جور كني هل مربى صدح طرف قاليان عقد يا قاليا الطرف الأول قبضي الطرف الثاني ننكي الطرف الثالث
waaligii amba aabbihii gabadha saddexdaa daraf iyaa guurkan isla samaynaya walidaalika guurku waa wax adag weeyaan ilaahay baa adkeeyey tabaaraka wa tacaala waxyaalada ilaahay uu ku tilmaamay guurka oo aan la yaabay waxa weeyaan waa 4 kelmadood ama 5 kelmadood oo mid walba macno ay leedahay kelmadda koobaad waxa weeye waa miisaaq waa heshiis waa caqd aan xajisano guurku maaha bayc wa sharaa maaha iib gabadha lama soo iibsanayo qalbiga lama iibsan karo qalbiga waa in la hanto hanashu u baahan yahay marka taas waa midda koobaad guurka ilaahay wuxuu ku tilmaamay alfadaa waqad afdaa bacdukum afdaa maxay tahay fadaagu waa space weeyaan waa ballaadh xad male waa caqdi waa heshiis aan xad lahayn wax walba way wadaagayaan gabadha iyo wiilku oo noloshooda ka mid ah wadaag aanan xad lahayn ilaa wuxuu ilaahay xarimay unbaa ka xaaraana waxa kaleeto dhan waa waxa la weeyaan hada alfadaa ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala guurka ilaahay wuxuu ku tilmaamay almawadda kalgacayl waa jacayl aan xad lahayn qofku markay nin iyo gabadhi isguursadaan jacaylkoogu wuxuu dhaafaa xubbi wuxuu noqdaa mawadda bal wuxuu noqdaa cishq marka arrintaasina waa muhiim arrinta saddexa afaraadi waxa weeyaan guurku waa raxma guurku waa maxay waa naxariis ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay raxmadduna waa maxay waa naxariis naxariistuna makaankeegu waa qalbiga weeyaan marka caqliga ma soo galo maaha caqli waa qalbiga laga naxariistaa arrintaasina waa muhiim arrinta ugu dambaysa ilaahay guurka wuxuu ku tilmaamay macruuf maxaa lagu wada noolaanayaa wacaashiruuhunna bilmacruuf faamsikuuhunna bimacruuf wafaariquuhunna bimacruuf macruufow maxaa tahay macruufku waa 3 shay kow macruufun bisharci sida sharcigu yidhi baa lagu noolaanayaa macruufun bilmuru'a raganimo waxay rabtay bini aadanimo yaa lagu noolaya macruufun bilcaql caqligu wuxuu sax u arkayna waa lagu wada noolaanayaa xeerka bini aadanku ay isla fahansan yihiin baa lagu noolaanayaa sida ugu fiican yaa lagu noolaanayaa maaha waan ku siiye isiin maaha tabaadul maaha waxaas waa macruuf waxa ugu fiican baad u samaynaysaa odaygaaga isaguna wuxuu kuu samaynayaa gabadhay waxa ugu fiican 5 shay baan ka arkay quraanka oo macruuf ihsaan baa isna jira ugu dari kara ihsaan samafal in la isku samafalo oo cadhooday adu qosol way cadhootay adigu qosol oo duday adigu soo dhaweey way duday isagoo soo dhaweey yani wala tastawi as-sayyi'atu wala al-hasanatu idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun habib ilaahay baa xumaantii wanaagu ma simaan la tastawi as-sayyi'atu wala al-hasana idfa' billati hiya ahsan adigu markuu qofku xumaan sameeyo wanaag ka horgee arrintu iska dhabaan xal baa keenaysa xalka ka mid tahay marka ikhwaani fillah arrintaasi waa muhiim jiddan waxaan ka hadlaynaa markaa maanta waxa weeye walaalayaal asaaska guri inaan asaasna markaan doonayno dariiqan barnaa dadkeenu meel kastay maraan xalaal iyo xaaraan waxaa jira 2 dariiq oon xalaal ahayn oo la maro dariiqa koobaadi waxa weeyaan dariiqa ah gabadha la noolow kadibna guurso waa xaaraan weeyaan gabadha la nooshahay oo wax walba aad ka aragtay maxaad ka guursan baa waad guursatay maada baqiya lakum maxayni hadhay waxa ugu wanaagsan ee kuu hadhay wuxuu ahaa inaan iyada u dhacdid iyada waa usii dhacdaybe adiguna waxa wanaagsan inaad aragtid ahayd isagaad ahayd waaba aragtee marka hada ariiq gayra saliim fitradun way ku horjeedaa caqliga saliimkiina ma ogolo diintuna ma ogolo waxyaalada reeraha dumniya ka mid tahay waaba lasii daaleba waa lasii kala dhargeba marka taasi waa midda kood dariiqa ugu xun ee la maro weeyaan dariiqa labaad ee la maro wax weeyaan qof aanad garanin guurso waxaa ka mid a dariiqada caynkaasiya internetka laka guursanayo internetku sukaa soo dhigayaa garhku soo madoobeynayaa uu soo baalashaynayaa uu isa soo qurxinayaa wuxuu ku leeyahay waxaan ahay inaan 40 jir ah 35 jir ah marba igeera xumaatay barabeerashigayga waa diyaar nolosheedu waa kaa gaari buu isku sawirayaa adigii ilaaba waxaad noqonaysaa wax kale yurub baan joogaa maraykan baan joogaa goormaan ku imaadaa waad moodi iyaduna saasoo kale makiyaash bay iska buuxinaysaa waxay samaysataa yani waxa xaaraan ah in lagu hasaawo needka oo la gaaro darajad in wax la isweydiiyo waa sax weeye laakiin in been la isku sheego man ghashanaa buu rasuulku yiri
فليس منا نينك نقشا بين نو شيغا wax aan ahay wuxuu lahayn garkiyo cadaadin madoobeeyo naata ka dhigay yarbaan ahay amba iyadu ay magiyaash marsatay wajiga kala dhaqaajisay iyadu wajiga soo ururay kullu dhalika la yajuz man ghashana falaysa minna bi rasuulku alayhi salatu wassalam maxaa nabigeena ka fiican sallallahu alayhi wasallam ولذلك labada dariiqo waa qalad maxaa markaa loo baahan yahay in la maro jid toosa oo saxa oo wanaagsan oo ilaahay uu ina baray subhanahu wa ta'ala gabadha ninku inuu barto ma tahay intuuna guursan hawa inuu barto nabiga waxa uu yimid nin uu soo guursaday wuxuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam su'aal buu weydiiyay hal nadartaha ma eegtay gabadha ma iska eegtay ma eegtay su'aasha muxuu rasuulku yiri haddii aad aragtay gabadha fa innahu eegitaankaasi adwamu isaga daa'im ka dhigaya guurka culimadu waxay ka soo qaateen saddex madrasadood saddex madhab baa lagu macnay madhabkoodu wuxuu yiri qofku waa inuu gabadha arko oo ka arka waxa uu keeni kara inuu guursado gabadha waa inuu arko gabadha waa ninka aragto xaq bay u leedahay okay illa is arka weey aragii uu ninku gabadha arkay culimada jumhuurku waxay leedahay wuxuu ka arkayaa baabacadaha iyo wajigana gabadhan quruxdeedii iyo arki intana wuxuu ka arkayaa gabadha wixii ilaahay siiyay nicmad halkaas uu arkay gabadha khalaas waa madhabkaasi waxa qaba jumhuur ulama daahiriyada iyo madhabkii in kale culama waxay qabaan wuxuu ka arki karaa wax kasto uu keeni karaa in uu guursado oonan ahayn as-sawatan awradaha waaweyn iyo intan maaragtay sagalisiin ee qofka binaadamkii shafkiisa aan balaabtiisa inta maar karayo laakiin bawdooyinku arki karaya buu maaragtay xaq hoose moolayada yu arki karaya salooyada qaad waxaan eegayaa buu oranayaa waxa binaadam timihiigu arki karaya kullu dhalik waynaadin idan labada madhab baa jirta madhab saddexaad baa jira oo culimada mucaasiriintu ay qabaan oo aniguna aan la qabo madhabkaasi wuxuu leeyahay hadhihi nadratun mahdiya taas waa material jirkeygii baad aragtay ayna aqluha goobad aragtay ayna qalbuha goobad aragtay ayna ijtimaaciyatuha bulsha ayna waxaana waa inaad aragtid say hooyadeed ula dhaqantaa say aabadeed ula dhaqantaa cuntada say u kala taqaanaa maskaxdeedu waa sidee say xoolo u hayn kartaa dhaqankeegu waa sidee waa nadra baciida waa ijtimaaciyan caqliyan diiniyan wayaan adigana inta in laga ka arkaysaa fa innahu adwan marka qofku inta uunan gabadha dooran waa inuu ku doorto can cilmin muxuu markaa dooranaya qofka gabadha dooranaya wuxuu ku dooranaya laba shay addiin wal-akhlaaq naagtuna gabadhuna maxay ninka ku dooranaysaa laba shay addiin wal-akhlaaq labada haddaa la isku doorto reerkii asaas baa loo yeelayaa asaasku waa maxay waa addiin wal-akhlaaq dadkeenu laakiin maxaa ka khaldan diintiina way ka khaldan tahay akhlaaqdiina way ka khaldan yihiin akhlaaqda waxaan u naqaanaa gabadha aamusan gabadha yara doqontaa sida qaar ku macnayaan gabadha naasaraka haye fadhiiso haye seexo haye dhar soo xidho haye ina kici haye هذه ونقن أخلاقها لا أخلاق waa shaamil gabadha runta sheegaysa gabadha beenta dhacda gabadha indhahayga ilaalisa dhegahayga ilaalisa jirkeyga ilaalisa sida aan sheegi doono insha Allah taala marka taasi waa midda gabadha lagu doorto weeyaan wiilkana waxa lagu doortaa waa ad-diin wal akhlaaq rasuulka yiri alayhi salatu wasalaam tunkahu al-mar'atu li arba' li diiniha wa jamaliha wa nasabiha wa hasabiha fadfir bi dhati ad-din dhinaca kalena ida ataakum man taqdawna diina wa khuluqa fazawijuhu idan labada shay waa muhiim arintaas marka hadii la isku doorto waxaa jirta waxa dhacdo ikhtiyaar khayaarat sanawiya arimaha labaad tan waa khayaarat awliya sanawiga waa maxay waa saddex shay ninku gabadha wuxuu ku dooranayaa quruxdeeda wuxuu ku dooranayaa dhaqankeega wuxuu ku dooranayaa fikirkeega anu waxay dhahdaa sulaasiyatul hayat جمال إن قوك اسمه جمال بوليه إمك رجع مركها نبى وجهه كده تمت كل وجهنا تسنكي عن كهلا يو حربيه عن كهلا يو من واحد كده تجيد كده نبى مال بوليه يقول لو صاري بكان جمالك والنسبي عقل يجيب اسنجرة وحاجرة تصدحات محارني مركها جمالك يا تال اسكو هلو
waxaa loo baahan yahay in akhlaaqdiina la helo iyo habkii nolosha loo wadayay ninkuna naagtuna saasoo kale ku guursanaysaa walidaalika culummadu waxay dhahdaan almar'atu sakanun warajulu sanadun aad bay iga yaabtay kelmadaasi dumarku waa sakan waa lagu xasilaa uskunuuhun waa lagu xasilaa min xaysu sakantu meeshaad degantahay baad dejinaysaa iyadaa noqonaysa lafdabarkii aqalka waad ku xasilaysaa ninkuna muxuu naagta u noqdaa sanad buu u noqdaa waa dhabar waa meel ku tirsan yahay laa waa meel ku tirsanta ujeeda laa xayaata biduuni sanad gidaar hadduuna jirin tiir hadduuna jirin nolol ma jirto walaa xayaata biduuni sakan hadduu jirna nolol ma jirto idan iyadu sanad bay u baahan tahay isaguna wuxuu u baahan yahay sakan buu u baahan yahay taskunuu ilayha waa lagu xasilayaa walidaalika ayuha alikhwa waxaa markaa ninka laga rabaa intuuna guursan inuu doondoono tuu ku xasilayay maaha inuu doondoono tuu ku raaxaysanayay faqad marka arrintaasi waa arrintaa weyn marka waxaan ogaanaa guurku waxaan odhanay waa caqdiga ayuu dhex maraya gabadh iyo wiil iyo aabaheed limaada horta gabadhu waa inay raalinimadeedii la helo inay raali ka tahay ninkan inuu guursado lama qasbi karo ninkuna waa inuu raalinimadiisii la helo iyo rabitaankiisii saddex waalidkuna waa inuu yahay raali uu ka yahay guurkan lidaalika nebigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam laa tunkaxu layimu xataa tusta'mar gabadha guur soo aragtay looma dhisi karo ilaa laga amar qaato gabadha bikirkana looma dhisi karo ilaa laga fasax qaato iyada amar baa laga qaadanaya ninkan maan kuu dhisnaa way hadlaysaa ta kaleetana waa la weydiinayaa ra'yigeega ilaa ay idni bixiso xataa hadday hadli kari weydo hadday aamustay yaro baxsato waa ogoshahay xataa tusta'dan xadiis kala jira ridaaha sumtuhaa hadday aamusto sukuutuhaa ridaaha raali bay ka tahay xadiis kale nabigu uri calayhi salatu salaam gabadha alkhansaa la oran jiray baa nabiga u imatay radia allahu canha alayhi salaam markuu aabaheed ku qasbay inuu loo dhiso aabaheed baa nin ku qasbayay nabigu waa diiday sal ly salam faradda nikaaxa wuu iska diiday marka taas waa muhiim weliguna gabadhu waa weligu laa nikaaxa ilaa biwaliyin walidaalika nabigu wuxuu uri calayhi salatu salaam ninka gabadha ismeherisa nikaaxiga waa baatil maxaa markaa loo yidhi waxaa saa loo leeyahay islaamka guurkiisu waa laba reer baa isguursanaysa fajacalahu nasaban maxay ahayd wa sihran waa abtirsiin iyo xidid iyo maaragtay waxa abuurmaya iyo xidhiidh sokeeye iyo waxa abuurmaya xidida cusub baa meeshii soo galaya marka laabudda min muraacaati kullu dalika marka ikhwaani fillah waxaan jecelahay inaan saddex kelmadood kaga baxo maxaa yeelay muxaadaradii aan ugu talagalay ma aaman taabanba salaamu calaykum welimuur waqtigiina waa salaadiina way nagu soo gaadhay casarkii walidaalika waxaan jecelahay inaan laba arrimood aan ku soo xidho waan isku soo noqon doonaa mawduuc adag oo halis ah labada arrimood aan ku soo xidhayo mawduuca waxa weeyaan ikhwaani fillah guurku waa mas-uuliyad waana mutco marka waa inaan labadaas ku xidhno azawaaj mas-uuliya waa mutca waa mas-uuliyad waana raaxo qofka raba guurka inuu ku raaxaysto wuxuu ku khaldamayaa fahmiga guurka qofka raba inuu guurka mas-uuliyad un ka dhigu raaxada ka daayana wuxuu ku khaldamayaa fahmiga guurka kow waxaan leenahay guurku waa labada arrimood waa mas-uuliya iyo mutca iyo yaa mas-uula ninka reer guursanaya waa mas-uul qiwaama waa arki doonaa gabadhuna waa mas-uuliyatu ricaaya iyadana waa arki doonaa labadan baba waa laba mas-uul oo kulmaya ma aha mid mas-uul laga yahay iyo mid mas-uul ka ah ma aha saa u macnino waa laba mid walba mas-uuliyad uu leeyahay responsibility baa ka saarmaya naxwa albeyt guriga naxwa alawlaad ubadka hadduu ilaahay keeno naxwa kili waaxidin minhuma mid walba mid kalena mas-uuliyad baa ka saarmaysa idan hadihi almas-uuliya almutakaafi'a almutakaamila waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo responsibilitygaas kadibna la isku raaxaysto mutca haddii sidaa loo fahmo guurkaas wuxuu noqonayaa aayaddii qur-aanka rabbanaa aatinaa fi dunya xasana ilaahu adduunka nagu sii raaxo iyo xasano waxay dhahdeen aimadu waxay dhahdeen addunyaa xasana waxa weeyaan albeyt azawaaj markaa ta koobaad ni sheekayaan waan kusoo xidhayna mawduuceena war guur haddaad ku dhaqaaqdid horta inaad mas-uul noqonayso diyaar u noqo responsibility si aad u noqotidna waa inaad fahantid maa hiya mas-uuliya
مسؤوليته maxay tahay aad ku koraysaa inaad garatid haddaad hore u aqoon waa inaad imika baratid haddaad yani kula dhalik waa ka hadli doonaa insha allahu tacaala maxaa oran marka guurku waa mas-uuliyad iyo mutca waa arrinta koobaad arrinta labaad ee kusoo xidhayna wax weeyaan guurku markuu mas-uuliyad iyo mutca noqday maxaa ka dhashay guurkii mas-uuliyad buu noqday mutcana uu noqday maxaa ka dhashay guurkaas waxaa ka dhashay laba arrimood oo mid walba midka kale uu ka culus yahay waxaa ka dhashay waajibaad iyo xuquuq guurku markaa waa maxay waa waajibaad waajibaadku waa maxay waa devoir waa wax qofka lagu leeyahay 1 2 3 4 5 inuu ka soo baxaa okay xuquuqduna waa maxay waa wax uu leeyahay inuu helaa marka guurku markaasi maadaama uu mas-uuliyad iyo raaxa yahay waxaa ka dhashay waajibaado iyo xuquuq in la ilaaliyo u baahan mid waliba inaa la ilaaliyo u baahan qofku hadduu waajibkiisa guto qofkii kale xaqiisii buu siiyey walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf marka labadaa shay waa muhiim labadaa shay annagoo isha ku hayna ayaan geli doonaa mawduuca ku saabsan sidee baan guri loo ilaaliyaa si uunan u dumin waxaan ka hadalnay guryo dumay oo halis ah waxaan ka hadli doonaa maalinta soo socota guryo aan dumayn marka intaas waxaan kaga baxay mawduuceennii waxaa jira 3 su'aalood oo la soo weydiiyo u baahannahay inaan imikadanba la soo weydiinay mawduucii Soomaaliya iyo mustaqbalkan ka hadlaynaa waa inoo soo socdaa lianna waxaan ururinayaa macluumaad aad u daqiiq macluumaad culusna waan helay kuwa kalena waan daba gurayaa marka insha Allah inta taa ka dhamaynayo macluumaad anigii ni sheegay mawduuc ma galo aan macluumaadkiisa aanan meel dhigin kadibna aan analysis gelin kadibna aanan meeshiisa aan dhigin marka taasi way inoo soo socotaa insha Allah ta'ala dad fara badan oo waxa jira in aad isku mashquuliya wax anigu aan sameeyo muxuu u sameeyay qaar kale waxay isku mashquuliyaan muxuu wadaadku uga jawaabi lahayaa mid baa inay sheegaya horta anu waxa aan sameeynayo waxaan cilmi u lahay waxa aan cilmi u lahay markaan sameeyana waa sameeyay anu aqoon u lahay haddaan hees dhageysto aan xaaraan ahayn culimo waxaa jirta ogol in heesaha la dhageysto oo ogol kuwaas baan la jiraa marka maxaan ugu mashquulahay inaan ugu jawaabo kuwa waxaan ugu mashquulahay anigu hadafkiyaan ku socdaaye dadka hadlayo dhan uma jawaabo marka dadka waxaan oran lahaa ilaahay enerjiga u inigeliye anihay gelinine geliya wax kaleeto lianna aniga ma helaysin jawaabteedu waxaad cilmigayga ka baran kartaa waad ogaan kartaa madhabkayga iyo fikirkayga haddaad doontana ku qanac haddaad doonina ku qancin kuma qasbani anu nabi kuma yihi malagna kuma yihi ilaahayna kuma yihi iguma qasbani inaad raacdid inaad maaragtay waxaas oo dhan wax iga bara haddaad iga baranaysid haddii kalena macallimiin kale iska yeelo sheekhi kale iska yeelo qof kale la sheekayso maaragtay kuma qasbayo lidalika energy ha gelinin inaad tiraahdo waxaa ii jawaab kuma jawaabayo su-aasha waa inaad garatid anu kama hadlo waxyaalada yaryar soo sokeeya waqti badanna kuma bixiyo dadkana uma jawaabo kuwa i jecel iyo kuwa i nacababa waxaan leeyahay hadaf baan u socdaa hadafkayga ila socda kii ila socon karaa hadafkaan wada gaadhayna marka taasina waa arrinta labaad een jeclaa inaan ka hadlo arrin saddexaad oo isna dadku ay soo weydiiyeen iyaa jirta arrinta saddexaadi waxa weeyaan mawduuc waxay ku saabsan tahay dadkeena inta ugu fara badan ay ku mashquulshan yihiin oo ah mawduuca maaragtay foxy iibkigan waxyaalaha la kala iibsado netka iyo wax internetka ka socda doodeeda sheekh nooga hadal bay leeyihiin insha Allah waxaan ka hadli doonaa waxaan u bixinay fiqhu nawazil almucaamalaat waxyaalaha cusub ee mucaamalaadka ee imika yimid ee diintu maxay ka qabtaa iyaan ka hadli doonaa insha Allah waxyaalaha dhowr shay baan soo qaadan doonaa iyadana waxaan ka hadli doonaa maalin dheerin hadduu Ilaahay tabaaraka wa tacaala marka ikhwaani fillah wixii aad soo weydiiseen waa taas waa mahadsantihiin waan kulmi doonaa mawduucu nagama dhamaan waqtiga nagu soo koobtay salaadii casar baa anaka fooda nagu soo gashayba marka waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh